السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel ka soo dunida nagala socotaan waa habeenimo axad ah bisha January ay sii galayso sanada 2022 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo bedelay mowqifkiisii ku aadanaa kooxda argagixisada waa aqoonsaday TPLF-ta warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dilkii Mareykanka loogu geystay Sheekh Maxamed Xasan madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen oo soo gaaray magaalada Muqdisho maxaa iska bedelay taageeradiisii uu muujinayay madaxweyne Farmaajo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ay barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilowna xaaladaha dalka Itoobiya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa u muuqda mid bedelay mowqifkiisii ku aadanaa kooxda fallaagada ah ee TPLF-ta iyo waliba gobolka Tigrayga Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa horey u sheegay in la raadinayo xal aan dagaal ahayn isla markaana aan ciidamada dalkaasi Itoobiya gudaha u gali doonin gobolka Tigrayga balse waxaa la soo tabinayay meelaha qaar oo dagaal xooggan ay ku dhaxmarayeen ciidamada kooxda TPLF-ta iyo waliba dawladda federaalka dalka Itoobiya balse dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in kooxda fallaagada ah ee TPLF-tu ay weerar ku soo qaadaysay ciidamada dawladda balse ciidamada dawladdu aanay jirin meel ka mid ah gobolka Tigrayga oo ay weerareen iyadoo horey loo soo sheegay in gobolka Tigrayga ay ciidamada dalka Itoobiya ka weerareen dhinaca gobolka Canfarta isla markaana dagaal ay ku qaadeen dagaalkaasi oo ay rabeen inay ku gaadhaan magaalada caasimadda u ah Tigrayga ee Makale Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Dameke Mekonnen ayaa sheegay go'aanka dawladda ee ku aadan in ciidamadiisu garin gobolka Tigray uu yahay mid looga gol leeyahay in laga fakaro xal aan dagaal ahayn Dameke waxa uu sheegay dawladda Itoobiya inay kaalinteeda ka soo baxday oo xilka hadda uu la jiro fallaagada TPLF-ta go'aanka dawladda Itoobiya ay ku amartay ciidamadeeda inaanay gudaha u galin gobolka Tigrayga ayaa si weyn loo soo dhaweeyay balse waxay ku xidhan tahay sida ay sheegtay dawladda Itoobiya sida ay uga faa'iideysato kooxda fallaagada ah ee TPLF-ta wuxuuna carabka ku dhuftay Mekonnen go'aanada ay Washington ka qaadatay arrimaha Itoobiya inuu yahay mid lagu degdegay Itoobiyana ay aad uga xun tahay Itoobiyana waxay qaramada midoobay ogeysiinaysaa ayuu yiri inay wax ka bedesho mowqifkeeda ku aadan dalka dagaalka Itoobiya ka socday muddo ka badan sanadka wuxuu ahaa ayuu yiri mid shucuubta dalka mideeyay isla markaana Addis Ababa ay ku kasbatay saaxiibo badan oo caalami ah dawladda dalka Itoobiya ayaa horey u sheegtay inay aad uga xun tahay habdhaqanka dawladaha reer galbeedka gaar ahaan waddanka Mareykanka oo ay sheegtay inuu u dhaqmayo qaab aan waafaqsanayn nidaamyada caalamiga ah isla markaana dumin ku ah dalka Itoobiya horaantii isbuucan ayaa xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka waxa uu la xiriiray madaxweynaha dalka Kenya isagoo kala xaajoonaya arrimaha dalka Itoobiya arrintaasi oo dawladda Itoobiya ay jawaab kulul ka bixisay isla markaana ay aad uga cadhootay waxay sheegtay dawladda Itoobiya inay ceeb tahay in dal madax bannaan arrimihiisa lagala hadlo dal kale waxayna sheegtay dawladda Mareykanka inay wax ka bedesho habdhaqankeeda isla markaana ay raacdo shuruucda caalamiga ah dawladda dalka Itoobiya ayaa u muuqata mid xal u raadinaysa arrimaha dagaalka dalka Itoobiya isla markaana rabta in miiska wada xaajoodka la isugu yimaado balse kooxda fallaagada ah ee TPLF-ta ayaan cadeynin wali mowqifkooda ku aadan dagaalka dalkaasi Itoobiya iyo sida ay dawladda Itoobiya u dhigtay inay ku raacsan yihiin iyo in kale balse kooxda fallaagada ah ee TPLF-ta ayaa u muuqata mid wali aan dhag jala qusinin arrimaha dawladda dalkaasi Itoobiya ay xalka ugu raadinayso dagaalka dabada dheeraada ee ka socda gobolkaasi Tigrayga gaar ahaan waqooyiga dalkaasi Itoobiya haatan aan eegno sheekhi lagu dilay horaantii isbuucan waddanka Mareykanka ayaa Soomaalida ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa dhigay mudaharaad ay ku dalbanayaan in la dedejiyo oo la soo saaro natiijada baadhistii ay wadeen booliska iyo waliba dambe baadhista gobolkaasi ee ku aadanaa dilka loo geystay Imaam Sheekh Maxamed Xasan oo ahaa mid ay aad uga argagaxeen dadka ku nool gobolkaasi Columbus Sheekh Maxamed Xasan Aadan ayaa ahaa imaamka masjidka Abu Hurayra ee magaalada Columbus waxaana la la'aa 3 maalmood ka hor inta aan meydkiisa laga helin meel cidla ah Sheekh Horseed Caymi Nuux oo ah hafayeenka dalada masaajidka Columbus oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay inay u halgamayaan xuquuqdooda ayna dawladda Mareykanka ka dalbanayaan inay la wadaagto natiijada baaritaanka dilka sheekha
waddanka Mareykanka waa waddan ay ku dhisan tahay inaad halganto oo aad xuquuqdaada u dagaalanto annagoo taas ka duulayna oo dastuurka noo ogol yahay ayaan mujtamaca Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ahba waxaan si wada jir ah uga dalbanaynaa dowladda dalka Mareykanka iyo waliba booliiska gobolka Columbus inay noo dedejiyaan natiijada ka soo baxday dilka sheekha. waxa uu sheegay marka ay noqoto dulmiga in dalka Mareykanka guud ahaanba la isku duumayo isla markaana hal meel looga soo wada jeestanayo. waxa uu sheegay Sheekh Horseed in mudaharaadka ay kala qayb qaadanayaan qowmiyadaha kale sida Carabta, Bakistaaniyiinta, Turkida iyo waliba dadka diimaha kale haysta. waxa uu sheegay in guud ahaan laga soo wada horjeedo dulmiga loo geysanayo dadka ku dhaqan gobolka Columbus. Sheekh Horseed ayaa sheegay inay isugu soo baxeen xarunta gobolka looga taliyo ayna halkaas ku tukadeen. waxaan u jeedinay inaan doonayno in sheekheeni imaamkeeni cidii dishay la soo qabto isla markaana sharciga la horkeeno. taariikhda Mareykanka inta aan garanayno waa sheekhii labaad ee falkaasi lagula kaco waliba isaga oo afduub ah. inaan weynay meel uu jaan iyo cirib dhigay ayaa taasi noo sii dheerayd ayuu yiri Sheekh Horseed. Sheekh Horseed ayaa sheegay inaanay weli helin wax baadhitaan ah oo ku saabsan dilka loo geystay sheekha balse ay la shaqeynayaan booliiska gobolka Columbus. waxa uu sheegay in booliiska ay la shaqeynayaan laba qaab inay farta ugu fiiqaan cidda ay ka shakiyaan iyo waliba raadadka ka hadhay dilka sheekha iyo waliba in la xafido xogta sharci yaqaanada kiiska gacanta kula jira taniyo inta laga soo saarayo gacan ku dhiglaha. wuxuu intaasi ku daray sheekhu in booliiska ay ka codsadeen inaanay shaacin qaabka loo dilay sheekha iyo waliba dhaawacyadii ku yeelay. wuxuu sheegay in loo istaagay baaritaanka kiiska isla markaana maamulka gobolku uu ka tacsiyeeyay geerida sheekha. Sheekh Horseed ayaa sheegay in magaalada Columbus ay ku yaalaan xaafado uu amnigoodu aad u xun yahay isla markaana ay ku badan yihiin burcadda islaysa laguna dilay dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhowr iyo 30 ah kuwaas oo qaar fara badan oo kamid ah aan la helin xogtooda. haatan aan eegno madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa galabta soo gaadhay magaalada Muqdisho. Laftagareen ayaa cadaadis la saaray kadib soo gaadhay caasimadda Muqdisho ka hor inta uusan diidin toddobaadkii hore inuu shirka golaha wada tashiga qaran ka qayb qaato. beesha caalamka ayaa madaxweyne Laftagareen ku qanciyay cabasho walba iyo waliba dhaliisha uu hayo Roble Kasokow inay tagaan shirka looga hadlayo doorashada. wararka la helay ayaa sheegaya in Laftagareen ka hor shirka ra'iisul wasaare Roble uu cilaamiyay uu caawa la balansan yahay madaxweyne Farmaajo oo saaxiibo dhow ay yihiin. waxaana la filayaa in madaxweyne Laftagareen iyo waliba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka wada hadli doonaan ajendaha uu la tagayo Cabdicasiis Xasan Laftagareen shirka madasha wada tashiga qaran. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo waliba madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqda inay isku duuban yihiin isla markaana wali aanay jirin wax iska bedelay mowqifkii madaxweyne Cabdicasiis Xasan Laftagareen ee ku aadanaa taageerada madaxweyne Farmaajo. akhirta sharafta leh wada nagala socoto intaas waxaan ku soo koobinaa guud ahaan wararkiina soo gaadhay inta ku kulmayna warkan warka xiga waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.